iyo gabdhaba ay isugu yimaadaan inaynu ka soo qayb galnaynu wada daawanno qayb ka mida kor u qaadidda suugaanteeda iyo hadba iyadoo laynoo soo bandhigayo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa xafladii baa inoo bilaabi doonta abwaanadii baa fadhiya aqooyahankii baa fadhiya ka xiisa guli maysaan aayadaha qur-aanka kariimka ah baa laynoogu bilaabayaa iyo sheekh yaxya sheekh ismaaciil soo dhaweeye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. إلهي أيضا في القرآن الكريم كأحد نبوة وعول المسيح لقل دونا وشدنا مناسبتنا قضية ما تستبدل مهمة أي كقعدة تعدنا عيدا وطلها النقطة هذا أنت كلام مدرسين يا وحكم بالعبية الدنيا حسونيو أحمد عبد وعايز. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امر الدنيا والدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفكري ضمان مفشرة قيمة عليه كسر الرسائل برنامج سوغانيتين والله قضية وحشاها يوتي محلقة يقمضا إلى برخا المعايا وبهضروا أبوان حسن داري إسماعيل فوق ورنتي أبوان دائرة ورنتي مضان إلى الله نظره وعن شعرها هنا من كل شيء وبنوس تعالى وأخوياك يقرأ قراية شمالنا حسن قلي أبوان مدراوي ويوم رنتي تاريخ الأمة الصومالية رنتي مير قيمة ورنتي شرعي فكرة وحان يلاوي الكريم قراءة دائرة جامعة موسى جامعة ورنتي waxaa dhici karta markaan leeyahay daadaya inaad markaan soo egtadaadiisa iyo dhallinyaranimada inay runtii ay isqaba weydo laakiin runtii marxaladan aynu ku jirno runtii waxaa odhan kara waa macnaha waa qoraan daayar runtii dhammaantiin waa mahadsantiin runtii hadal badan uma kicin waxa weeyaan runtii haddaanu nahay dalada dhallinyarada ee qaran ee sooyo waxaan u taaganahay oo mar walba waxaan u taaganahay sidii dhallinyarada somalilan ee maxay ahayd isku xirkooda iyo halaagurmadooda runtii maxay kor ugu qaadi lahaa caawana tana barta u fadhinaa waxa ay ka mid tahay runtii maxay ahayd mid ka mid a maxay ahayd ujeedooyinka loo aasaasay sooyo oo ah in dhallinyarada runtii haldoorka ah in badan maxay ahayd ku dhex jirta dhallinyarada in la soo saaro waxaa runtii iga marakacaysa oo aan aaminsanahay inaad ila aaminsan tihiin abwaan xasan daaqil inuu yahay runtii abwaan da'yar oo waxa weeyaan taariikhda runtii maxay ahayd baabtaha kaga jira taasi waa taa waxa weeyaan markaan runtii ujeedada iyo runtii roorkasooyaalka kaga baxo aniga caawa xafladatan ama maxay ahayd bandhigkan waxaan odhan karaa amarkii soomaaliyeed laba walba isa saarayo maxay ahayd isma saarin laba tuguuro isma saarin sababtoo ah laba isma saarno runtii weli ima suurto gelin inaan caawa oo runtii ay ku beegan tahay habeen qiimale oo runtii ka mida habeenkii 26 Juun 1960 oo ay ka soo wareegtay muddo 11 sano oo ah habeen runtii
meel cahli soomaaliyeed laga taago calan ay soomaali leedahay runtii inaan caawa fursad helo qiimo iyo sharaf ayay aniga iyo dhalinyarada somaliland loo tahay waxaa kaloo iyaduna qiimayne runtii waxaa iyaduna runtii qiimayne inaan caawa runtii fursad u helay inaan in badan suugaantiisa in badan aday noqonayso ama aan dhegaystay ama aan akhrisay runtii isaga oo ag fadhiya inaan caawana ka soo qayb galo runtii taasina maxkiga ay tahay waxaa runtii aan jecelahay fursadda tan inaan uga faa'iidaysto dhalinyarada oo runtii ah haldoorka iyo lafdhabarka ummaddan oo runtii boqolkiiba somaliland inay ku jiraan aqoonyahankii inay ku jiraan inuu ku jiro abwaanadii lamida xasan daahir markaa runtii waxaan runtii leeyahay waxa weeyaan waa inaynu taageernaa keena haldoorka si inteena kalena aynu waxu noqono waa inaynu isku yimaynaa waa inaynu barbar istaagnaa waa inaynu barbar galnaa islamarkaana qolooyinkii ka soo horreeyey sida abwaan xasan ganay iyo adaawi runtii waa fursad aan odhan karo waxay caawa ku farxayaan markay arkaan abwaanadii bedeli lahaa iyaga runtii waa wanaagsaweyn dhalinyarada oo runtii dadaal badan iyo karti badan iyo hal abuurnimo fara badan ku jirto waxa ay runtii laayihiin meel ay ku soo bandhigaan madasha khatar kolle waxay noqon doontaa madalaha ugu horeeya ee dhalinyaradu ay ku soo bandhigi doonaan aqoon iyo karti tabayntay leeyihiin waad salaamantihiin waxaan jecelahay inaan mar labaad idin mahadnaqo sida qiimaha leh shucuurta leh aad kaga soo qayb gasheen madashatan aad baan u salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed aad iyo aad buu u mahadsan yahay kolley dhammaantiina halkan isugu timi ujeedaan u timaadeen meesha waxaan jecelahay inaynu haddaba ujeedadii gudagalno way idiin dambaynayaan qof kastoo idinka mida su-aal baa laga yaabaa inay maskaxdiisa ka dhex buuxayso oo uu islahaa haddaad habeen jaanis u hesho abwaan weersame maxaad weydiin yahayd markaa qof walba su-aalaha insha allah jaanis baa laydiin siin doonaa 45 minit ku badin maayo ayaan hortiina keenayaa oo aan bal jecelahay in suugaantiisii wax ka mida uu kusoo qaato abwaan weersame waad aragtay gawaadida diyaaradaha marka la raacayo beelka la yidhaahdo xidha si aanay badbaadadina dartiis inta kalgacaylka u nugul caawa waxaan leeyahay beelka adkaysta xasan daahir ismaaciil kolley waxyaabo badan oo sugaantiisa ama ku istaagi doonaa aad iyo aad mahadsan tahay telefoonkan kusoo dhaweynaya الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده وقام عينيات ولا يراك يا ولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده طبعا والسلام يا دكتور عوض سوريا صلي قري نقول رئيسية ومشرف رئيس فريضة وهي عندي سؤال هو أبوان حسن حاج عبد الله حسن جدي أبوان حاج بن مسلم هداوي شارع مستشفى مع القرايا أنا وطالب ذيك ما فيش شيء موضوع حاجة أساسية كمان intaasu markaan intaas kaga yimaado waxa kaloo u mahadnaqayaa dhalinyartii iyo cid kastoo soo abaabushay macaawa idinkay hor imaado wixii anigana aan duurkayga gubayda marka ka idhaahdo waxaan u mahadnaqayaa Jubba Express iyo Soomaaliya iyo Ansar oo soo qabanqaabiyey iyagana waa mahadnaqayaa waxaa leeyahay allah yabaarik maasada ugu horeysa ee jiray halkana ka gaari waxa weeyaan waa maasada la yidhaahdo taamiyo
حاملة الدواء مرة اللي وحقوق عبرة أنا أقول لك سوى عيادات كنا وأقول عيادات ما صدق هم بيتحمل تحقيق كذا فكيف رئيس يقولون أشياء وحيلا يضل نيكو تبي تاجر نيكو تبي ورقوتي نيكو تبي تاجر كذا شاب بوطاي وفتو تشيء كنا لو بتراي واحد وقف قدوم تقول أنا الدنيا تقول الفتاي دوق تاجر فيه وكسوه قيمة لا يضل قف فتو وحكوي سنة دوق الشرقية بين الإحبالية بحنا الإحبالية مخاصة قال دوق حلوين كرينا تاجر qof hadduu tar sheekana wuxuu tareego waa kee wax shalay ka taagay intaad fiisa leedahay arrinkaa ka taagan yaa lagu kaa taraara tagta way ka teertuur ka tirmaanka teedii hawtaagi taagda berri iyo timaadada haw tiirin hawlaha kadhinkaaga soo tuban talag iyo dharaaraha haw tirin xilkaagii haw tagin talaafiid xaajada tog dheertaado ha ka dhidin tabaalaha ama tawsa waayaha goortay ku taabtaan cidda haw tabaawin naftu way tasawdaan way toobad sheegtaa mar haddaan taxaabiyo damiirkaagla loo hayn oo de ilaahay baa inoo sheega waa kii nayidhi ina nafsa la amaaratu bisuu naftu dee dadka xumaha ayaa dharabartaa haddaad raacraacdo kolley meel xun bay ku geynaysaa kolkaa damiirkaagla haddii loo waayo kolleyda waad kala toobad sheegaysaa adigiyo iyaduba tafatoofka caydhiyo mar hadday ha toojii taladaada yeeshaan tiiraanyadaada u tallowda ruuxaa kuu teella dhiganay toganaha u geediyo tabanaha xigoodaa kaamila ku deeqiyo codka laga dhex tuutaa noloshuna geligeedbada waxay ka samaysan tahay balas iyo mays waxa weeye waa nimco waa khasaare waa korukac waa hoosudhac waa bisaasa dhow socota intaa dhexdooda dee laga sameeyaa ayay ku dhex jirtaa muxuu ahaaye nolosha macnaheeda intaasa laga dhex tuujiyaa noloshana kafteedeen tukeeda daawaday dhabka taagasheediya runta uu takoonaa ha tiirtiirti noolaha ha ku tuman asaaga ha tandhaafin digashada hadba hadal tumaatiya tiirtiirti ha u odhan arxankiyo tudhaaluhu yaanay kaa tafiirquy doortaaga kibirkiyo qafku yaanu kula tegin haytaawin aadmiga tayaynaad wax dheer tahay qofku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkumataal xurma waa tixgelintee taalladeeda muunee qofka kuu tanaasula sida taayir ha u marin dadku waa halkaa iyo cidii aad ka tarantee safaraarigoodii ha ka talin wax dhaawacaa ha ku taalin gogolaha ha tafdiidi boogaha hana tuulan gocashada tinta eelka ha ku durin tib wax leegna ha u dudin dud u yeela tabashada xalka taarka ha u jarin xinka tooray ha u tuman berri teella u yar dhigo wax dankaa ka uga dur war haddaad xitaa doonto qofka inaad samayso bal iyartaa ka bal ka duruqo waa inaad soo berri soo noqotaay bal wax laha meelaad ka soo noqon karweditaa tegi dadka tooja ha u qabin misle toorin ha u qoran ku tuntuunsaha nashada wax la taaba ha u mudan wax la tuuraha ka dhig ibni aadamka lama nasti karo haddii aada digtood ilaha iyagaas ka keento inaad qof nasabtaa waa habeenkii xalay ahaayay ibni aadamka waa la santaa kolkaa qofka waxyaabaha dadka muxuu ahaaye waxa ilaahay u qofka ibni aadamkaa siiyana qofka ugu dhiibsan intaas qofku xumeey yahay qofka wanaaji imika day qofkeenna midkeenna kuma dhaca $50 inuu jajeexo ima $50 jajeexi kara rag iyo dumar isu tago ma dhacay kadib laakiin in nebi aadaad samayn kartaa inaad qof samayso waa laga yaaba adoo ilowsan in qofku lacagta sameeyo kolkaa muxuu ahaaye dee inaan dadku saasa noo sii markaa ruuxu teelteel gafka ugu tallaabsado ha ku tolin garoobaha lagu taxo qof daalina adba waa taraartaa tumaatida ilduurkoo dadku waa ka taadaa nolol tababarkeedana way tubanturoodaan inta lagu tafaafulo garashada tiriiga tuhunkaa ka koowo hadba xaaja tuur lagu toosiyaayo tugta lagu yakoobee kafka lagu tasiiro siya kugu tuuraa isku tali dabee tali ma tashade hayii tali hadal toosa weeyaan haddaan saas kula tegin keligiisa kaa toban addayaanu ku togin tukuhuba dadkuu baray
tartiib bay lahaatee ka tixraac quraanshada tacabkiyo waxqaybsiga la tasho adoorkana tacliintiisa weydii waa marbaa sababta xawayaanka ay daamo malaha إذا أبغى هذا الدماغ كذا ترى كم غلبيش اللي يقول لي يقولوا لي كذا وكذا يلا هم كم غلبيش الدماغ أسيس كذا ترى أولي أسيس كوضنا يا محو هاي كم موافقة أنا بين خوايا خوين كذا بيان كذا أنت الله تسمي كذا يا لوتي يسكوك كذا تمرك هذا مولديو تعبك هذا مولديو ثلاثة هذا فكركيو هلابور كترانكاري ترميانك هلقابين كتر بورك ولا شدا تتر بوصة بقشدا أضبط هذا كهير قري هل قدروا الشدوية وقوة هاي انت بقي هذا في قبر كرم بين قبر كرين الله تطلع كما وصينه كل هذا وقوة هاي يدي قوة غير بعد واحد بيع قدروا الشدوية هاي قدروا الشدوية كان كهير قري adigu waa ka noqon karta meel aan fikrada oo kala garanayaan joogid ma soo socotay gadan tahay rasmi ma san caawa faya magaceeda rasmi waa la yaabaa wuxuu baa jira wada rag wada cabaliyay ilaahay been wax xaraam wax uu damcaa waliba ina qarakaaba laga yaabo waliba markuu mirqaamay isagoo birmageyada inta haya dabeeto waxa dhacay meel baan iska deganaayo waxa arkay habla aad u qurux badan oo kacay dabeetana meeshiiba waxay noqotay deked waa lagu soo xidhay yar yarkii waaweynkii fiictada lahaa wuxuu baa xilkaa saaray aniga Allah ayar tiraado adeerayaan nimankaas walaal wax kulay bal isdawrawda ilaahay baa dhawree waxay maantadu la hadlaysaa inan kasta oo ay kala hadlaysaa muxuu ahaayay kulay dariiqa fiican ee la maro waxay tiri intaan jacaylkuna raran aan joogin intaad xuubtiyo weegtay rumaankiyo waxa dayrta saguna ku wada haweenay run baa lagu meel maraaye hareeyadina ayahaga wanaag ruuxii u jeeda waa bay ku fadaha siinin dadkuna waa taasamaale taqiisay kula ahaaneen xadkii raaliyaha dhaafay xilkii hooyada xaqiiqin khiyaaliga ha u xalaynin bas kaa roodida dhigaya hafuuli sidii rakaabka bas kaa roodida dhigaya hafuuli sidii rakaabka rubiya beesadi ma goyso ruux nool sida xoolihii hankaaga riyaa hafiisan oo inay naftu iska jeclaataa laga yaaba gaariga ay quruxda badan leeyo wax ka hooseeya loo garan mayse laakiin se inay tahay ka caashaqdaaba laga yaabaayo gaari waa gaari wala dadka roodida dhigaya kan waa isu wada mid u leh laga ilaalinayso sidii raha qayladaada hadduu reeruhu ku tooso waxaad rataa abaare karaahidu waa rasaase cawray ka xisho raxmaanka markaad hooshaan bislayso haddaad hodorhodol u miisto intaad ruqateedi duugto hadday jibba kula rabaasto raqdaaduu haada cunaaye rogrogo hadalkaan kuleeyi ha noqon riyo malaawaala ha noqon rudha iyo mid roobta ha noqon raysiyo risdiida ha noqon raasiyo dugseega ha noqon rati heeriya daaqa ha noqon midaan cidi ku raynin ha noqon ruushiyo maraykan ha noqon rukunada ibleyska ha noqon ruugaamingooda ha noqon sharafteed dukaasa ruubaanada marin habaabay jacaylada roodhikowga jacaylada roodhikowda jacaylada soo rugleeda jacaylada soo rideeda jacaylada raafilaaca jacaylada reer magaalka intaad ugu wada raagto raguna waa wada ragune in baa raxaliyo libaaxa in baa riidiga lacayna in baa la faduu ku caana in baa biqil kuu rifaysa waxaa jira ceeb rabayste hablaha rubadgooyin yaqaanay ku hooyo rondada liqaanta
ruuba la soranayaayo raga darro kuwa kaas isku leeyay waliba markay soo leeyihiin wada qurux badan yihiin laakiin ka ilaahay ma uu wado xanuunkii ruux ma dhaafay roogii hawdhigan casaaye rooxaantii lada wanjaabtay barbaarkay raadburtaaye kullay manaxaa kasaysan cilmigu raadkaynu naalle raadkaaga ka baashdhiilo waa idinka maqlay oo ayis baa jiro oo ayisda dunyada siduu u kordho waa idin taqaanaano berdhaweyd waxay la yaabanay jiifoo jaqdii kama inaa yaabanayn yani xawaalihii jiifoo jaqdi uu ku socday guriga soo hargeysaa uu taabtay ayisku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha saa u kordhaa kolkaa inaguna dawladaynu wadaayid qaadi lahayn waxa la qaatay labada malaha deena way wada dhawrsoonaan muxuu ahaayey abuu kulley kama doontaan inaga qoranana dela daayo oo salaamta wala rasmigu waa qaad xalaal sharciga yeelada jacaylka waa kala ka dhawo runiya been lama maseeyo rafiiqadu waa xishoodka sidii rabadaan qof sooman dhowrsoonida sii raxayso kolay tahay rays magaado asbuuraquunay jirkaaga mid dhaqankiisii ka rooray hidaha reer yuruuxay daamaaladii ku guursan hablaha sida roob la dhaca shantaa faralkana rukuuca iimaaniyo rogogna sheegtay hablaha rucdiga iyo nuxuusta rugseeye sama ka doortay safkaasaa bixin u fiican gayaankuna wada rabaaye kitaabka kuwaa la raaco intaad qolyahan xiiran raaci lahayd adeero kuwaasi kitaabkooda raacanaya isalib asturan ee laylaha oo garanaya shan salaadaha tukanaya kuwaasi iska raac kuwaasu gayaanku doonaya inaan qaabo waxba laga weydiin maayo addoon rabbigii yaqaana kaandhiisiyaa yaqiin leh rafaadkana kaa ilaasha kaa raalliya kuu riyaaqa intaad raadisa hawaaye da'dii anna reestifaaga rabaawga waan ka weynay ka rooni darkaadii mooday la yidhi doqorri raxayootay dhugmada sababuhu ka raaran ranjaan kula diidayaaye fadeexadaadoon rabaysan dalleecadu yay ku raaci intaas waa in gayntaa waa fadhiisan karaa ilan 45 minit u taagnaan kari maayo ama adigu tafir ama ha tafirin aqoonsigu waa mid ka mid ah caqabadaha caqliyadeena haysta waayo tallaabo ma qaadi karra inta bahalkaasi laynagu buufinayo waxaa imika jira in lagu odhanayo nolosha kaalin kasta oo noloshu lahayd oo qofka ibni aadamkii qaban jiray oo aynu qaban karro ayaa laynaga xidhay bahalkaasi adduunyadana waxa ugu daran dadka marka rajadooda iyo noloshooda iyo raganimadooda iyo xiniintooda iyo waxay yihiinba lagu xidhan nin kale wax gacanta ku hayso si kalena umaynaan xoroobino dee haddii xornimada tan lagu siiyo lagu idhaahdo calan baad leedahay wakaasi calankii qaado oo dabeetana halkaa ku dhejiso oo samada la gal oo calankii uu macno badan samayn waayo oo dadkii ay niyada iyo yuguunta ka gumaysan yihiin kolley xornimo ma jirto xornimo waxay jirtaa inta qofka ibni aadamkii dhaadanaya xornimo jirtaa hadduu qofka ibni aadamkii dhaadan kari waayo oo anigu aan ku han weynaan waayo inaan xasan daahir ahay oo aan adiga kaa suga inaad iigu dhaaratay inaan waxahay dee nacsnimo ka weyn ma jirto iminka soomaalideennii hore haddaad u fiirsato waxay odhan jireen markay doonayaan hawl in la qabto waxa ragu kaco rabbina aqbalo inuu raagaba uu rumoobaa intaasu condition uba jirtaba inuu ragu kacay inuu dee qofka ibni aadamka ay ka soo godo welig nafski isagu ula yimiday oo waxa uu isagu raba inuu qabto dee iyo inuu ilaahay aqbalay iyo inuu muddo jirta dee waxaasuu la wado oo consistent ay muddadaasu tahay inuu raagaba uu rumoobaa miyaa dee raka ka akhrisayo NCR iyo UNDP iyo qaramada midoobay iyo meel la kaysta saasay dee nolosha lagu qaban jiray noloshana muxuu ahaay waxa wax qabta uun inteenan oo doonta inay wax qabata laakiinse markaynu nolosheenni oo dhan ictiraaf ku wada xidhno imika wax kasta lagu idhahdo ictiraaf garkaan iska xiira ictiraafka lagu odhanaya ictiraafka ma rays ma noqon kartaa
waxay tidhi asal tirama doorashaha isugeynta wadareed inkastoo la'aantii kasku boqol amaamudin aragtida saboolkii hadba ka inkiraysay ku adeegsataayo aflagaado mooye cidna kuma ammaanaan ilin qubatay baa tidhi olol maanka shidayaa abur soo tufaayo anna uumi baanahay uurku taala dhalisee isha aad marmaraysee aamusiis leedahay maba laha awooddaad u agaasimayso irid furan ahaw baa lagu siiya amaro waa ilin bannaan oo aan ka soo aroora ammintaan gudhaabaa waddana la saara ilinta halkan ka socota haddaad indhuhuun marmarato caawoo dhan dee uurkaa laga ooyahay ilaan isha laga ooyi maayo oo laakiinse halkanna aad uurku taala jirto da ishu joojin maysa ilmada way socon weligeedba haddaynu mashkiladeenna weligeedba ka raadina meel aanay ku jirin mashkiladeennu weligeedba saasa usi jiraysaa 250 sano kadib halkiin baynu taaganahay dee dabaqiyuun baa inoo soo kordhayso inagaa baryo tamanaw maynaa 250 sano kadib siirka soo iibsanayn maxaa ducufnimada halkaa ka hoosaaqay tahay siirkaynu iibsanaay haddaad galley beeran kari weyda ka waran 250 sanood xornimo haysato haddaanad galley beeran karayn camal maxay kugu taallaa oo siirka iibsanayso kolkaa xornimadeenu sow maaha tu aynu inagu daysugu been sow noqon mayso kolka ayaynaan ka raadin ictiraafka marka xaaladkaadee mustafa wawaalaha ninba aag samaysaa tixdu ayaleede balaanaan wax maalahan dhibco wada ammaanaha oogadiisa lagu tahay ee bisada ka soo furo ictiraafku waa alif markaasay niyahoosu lebele ka dhignay oo aynu labada dhibcasiinay aanu lahaynba meeshu waa ardaaweyn waa dunyadii afarteeda geesood agaraadam weeyaan amintuna arooriya inay tahay alleel hore ishu way u jeedaa waa gole gurigiiya lagu saba abeesada garteexa oo dhami gurigay ku ababtiyo waa galo agoomaha axankooda lagu cuno waa gole addoomaha marka uu itaalgabo iibiyo dhulkoodii arrinkay ku nool yihiin adduunyadu waa ta falastiin dulmiday waa ta dhinac kasta layska dulmiyayo adduunyadu waa ta muxuu ahaaye qoodhanaysa falastiiniyiintana ha la garaaca liibiyana qadaasha looga heliyo adduunyadu waa ta saa u shaqaysa eedaysanaan nahay innaguna dhammaanteen eedaysanayaal baynu nahay utimaha angeysiya aanada laga xidhay siday ku andacoodeen amardiiddo weeyaan sababtana abdeed qownina aayihiisiyo arrintiisa gaarkaa uma ood rogaayo waxaa lagu addoonsaday cariskaa u noolow adduunyada innagu eedaysanayaal baynu nahay waxaynu u xidhan nahay cariskaa u noolow baa laydhaa kayskeennu waa cariskaa u noolow waxba ma noqon kartid weeyaan dhibanaha aanoon arag edeganii soo dhigay ciddaynu u xidhan nahay dhibanaha anigoon arag ergadii fariinta iyo aftidayda qaadee afhayeenka ii hay waxay soo ogaadeen ashkatada inuu qabo oday aad u weyn oo laydhaa aqoonsigu dhibanaheeni waa aqoonsiga ka aynuu xidhxidhannahay ee halkan loogu jiraa waa isaga innagoon arag ciddii meesha aynuugu xidhnayn baynu nidhi siyaasiyiintii iyo dee dadkii wax la bidi jiray dee nimanka ahaa ayaynu nidhi waa bal heedha maxaynu xidhxidhannahay way nagu soo noqdeen waxay nagu yidhaahdeen waxaynuu xidhxidhannahay aqoonsiga afbuuxa intaan bay noo sheegeen mee wax kaleyna yidhaahdeen urur waxa markhaatiyo uu dhalay ugaadkani haddaba ururka markhaatigay nagu furaya eedaynu geysanay aqoonsiga laftiisaa dhalay qaramada midoobay waxa lagu galaa aqoonsi baa lagu galaa soo maate hadduu aqoonsigii kaa cabanayo qaramada midoobay yaa kusii jira inankiisii baa dee kusii jira somaade markhaatigeennuna waxaate yani kayskeenu waa saykalba urur waxa markhaatiyo uu dhalay ugaadkani halka tani asqowga xeer ilaalinteedii ugu oogtay kiiskuna dulmi oofu weyn oo abiga ku naaxiyo waa dhagar abaabulad qaramada midoobina waa meesha dunida lagu soo dulmiyaba aragtida midaysoo ku qorrayd afkoodiyo qodobada agnaanka ee aan ambiilkiyo ulashadu bannaanayn waa xeerka uurtani laysugu unun jaro xeerka meeshaas u yaallaa waa qodobo agnaana oo aanad soomaaligeennii ku qorrayn oo inaan fahmi karin oo inaan inagu ka talin karin kaasi weeyaan xukunkii afduubkiyo ku dhisnaa awoodee durba lai itaashaday ma abuurnid buu ahaa wax kalaa layma odhanba wax jira maydidunbaa laynagu xukunka laynagu rida waaba intaasoo keliyaa ka wey guddoonkiiyo ansixintii ogobay naftayda u ahayd abbaano ciidamo aqoonsana ku afgoysay xeerkii xukunkii laynagu riday laakiinse innagaa ku dhawaaqana innaga waxaa laynagu soo iroon waxba may ridin laakiinse innaguna xukunka innagaa ku dhawaaqana bal u fiirsa imka dadkeenna waxaanu nahay dowlad yaroo daciifoon cidina aqoonsanayn oo liidatoo boodhku saawga duulayo kadaayo waxaasaa la aqriya xukunkaasaa laynoo soo dhiigo daaya beredkaasaa ku dhawaaqana innaguna de laakiinse qof hadduu ku idhaa tuug baa tahay oo aadhad ahayn dee mayhi baa bannaan miyaanay mayhi bannaanayn
laakiin se waxa ninku yiri inaad adna la qaadatay oo ilaa dunyadu danay ku salaysantay imika markay nala shirayaan ma layna aqoonsaday ay noo imanayaan markii dan naga leeyahay waa kuwi noo yimaadeen miya layna aqoonsaday haddii muxuu haayay waxa qofka ibn aadamkii ku yiraahdo macna weyn ku sameeyo dawliga Allah saas ka wadnaanaysa waa tacaruurteenu tahriibaysa aanu macallin baan iskuuladan dhigaa waxay ku oranayaan hadalka ugu weyn ee yiraahdaan ma taqaan caruurteenu halka ay tagaysa caalamka buu qoranaya waa waxa weeye waa masuulki caalamkan tagaya qoray halkan waa Venus ama waa Jupiter waa banaan kale tan ugu taalaabsan caalamka ma aha إلا كوبية سجاش كثير هذا الكل أقول هاي وحبيب لي هندو عفاين الله لا ينما أقونسنا تاسكين حبس ملا أولا والشيء طالع حبس جاي كمل أول كي يعني لما تشين نريد أجين كحرنا هاي حبس ملا أولا والشيء طالع قال عن أبورتا الدماغ الدقيقة أرحية وجاء كيلا شو صعب marka ma xasku ay faad sida geelo noloshaad oo arxamaysa abaartayda qubisa inta aan duufay igu tiraahdaa asraarka hibashada ambiyay daboosha xaqiiq loo istaagay garashada ku awda afdabaan dhabaanaha waxa ay aftaysaa sawdigii adoonha laga soo adoonsaday meel aan adoomaha amadkood soconay cabshiga daadan laga soo adoonsaday adduunyada adoon labaad kuma ilaahay bayna adoonnahay qof kale oo ibn aadam aqligana adoon uga noqon kartid cindigana adoon uga noqon kartid صوتي لغو أدونسدي أمينان أدون جيرين صوتي أدون يهو لغو يري أدون نقو ها أدون سنايكا هنا نقون أدون كلامي سي أدون صدو بل محي أدون هو أدون سنايا صوتي أبو را يدون الدنيا دو إذا كان يفوق علي الدنيا دو يدون globalization جيرين أو أنا أنا هاي مينان أبورنا ينان جيرين sawdigii abuuraa iyadoon asaaga anfacada ku siinay iyadoon mucaawina iyo qaramo midoobay cidina waxba nasimeyna weligeed soo jiri jirin oo inaan ku taaqo fiirmeynayna ku soo gaarin macid baa raashinkeena in siin jirtay de kuwii soo noolaa noo imkana in siin noolaan karaa oo daynu taganimadeedii yeelano sawdigii abuuraa adigoo irmaaniyo igariyo haleeliyo ariyo gamaaniyo adduunkaaga foofsada sawdigii abuuraa adigoo shaadiyo siteeba iyo leed sawdigii abuuraa adoo waaya aragiyo odaygeed ka taliyo guurtiyo indheer garad taladaada u igmada sawdigii abuuraa milay lagu abaadiyo jiilaal abaariyo masbadan kaliileed een uunku belidii awqaad ku tari jirin sawdigii abuuraa adigoo awoodiyo garashiya aqoon iyo gudashiya aqoon iyo gurmashiya adeeg iyo galadiya abaalka bay indhashooda isura sawdiga afqaysiyo dirirkiya gaalida dayaxoosha soo raray amintuu la soo dago waxa laga odorasiyo halka lagu asooriyo tirsiinadeeda aqoonteed lahaan jiray sida gabadh agoonley laga aatay saygi aqoontaad lahayd iyo garaadkii irmaan ayaa u xiray asaygeega aan la furi karin xitaa maanta aqoonteenu aqoon maaha ilaa buugaad soo qaadato afka kala ku qoran cid waxba ka dhageysan mayso ilaa buugaad soo qaadato inaad adigu aqoon lahayd inaad jiri jirtay inaad umada ahayd wax alla waxa soo dhan baa la ilduufay de argeysuun fiirta balboodharkeeda balboodha Soomaaliga soo leeyahay hada boodhan hada kuma aqristaan kuma fahmaanba hadana wuxuu bay leeyahay hadaynu af Ingiriis halka ku qorqorano xitaa kalsoonideedii baa ku xidhatay boodhka ayna af Ingiriisiga yaani waan kalsoonideedii midnimarayso haddii aanad aaminin ikhtiyaarka nololeed inuu dhaamo eersiyo eedaynta sabankiya xadiya ayaamaha naftu waxay ka ooyday ridii albaabada kursiinta lagu galo haddaynaan aaminsanayn adduunyada inaynu inagu intaynu halkan ka kacnaanay day ugu xidhan tahay marka inaan kaco iyo inaan fadhiisto miyaan cid weydiisanaya adduunyada qofka ibn aadamka warda bruta la tagaya bruto ayaa la tagayaa adiguna waxa lagu karlaayay fikir beero تبقى ورا طبعا مركزين سكول من النبي هذا من نهاية ما مرخاتبين وتريد أنت كارد كاخانا عقل بين لنا هنك أول شيء يصير شيء أودوه حتى يكاغا أوران أفريقيا حراس يدان كحريمدا كسوحو إيشا إنه إذا كريوبو هلابور
tanna waxay afaafkiyo wadasada ka qaadaa inta iinta korisiyo inta eexda beertiyo inta aafa kicisiyo inta eelka reebtiyo inta oosha dilisiyo inta arsi talisiyo inta lagu abaadiyo inta laga ajoodiyo inta lagu asqoobiyo inta laga afeeftiyo inta lagu idlaadiyo inta laga ordaayo alla laga wakiisho waxa kale irdowdaan ubadkiyo dhashaado uurkiyo ka shaadaa muran laga dhexooga muuqiyo shaada arad lagu daleeya iidhiyaysiibad ayaha ku seegtaa يعني markii waxa dhacay in imika xitaa aragtada maanta suuragal ah inaynu inaga ubadkeeni kale dawna aynu durbaano u qaadano loo tumo waxa arkaysaa maanta markii aynu noloshii aqliyadeeni iyo isticmaali weynay kartidii ilaahay nafiyay inaynu dadkeeni ka dhignay hantida kaliya taa aynu dirano oo yurub day nolosha shaqeeyaan waxa arkaysaa xaafad inantoodii diraysa arkaysaa imika halkaas mar loo halkaas soo tahriib oo taamar waa inantii bay dirayaan يعني ubadkeeni noqdeen xoolaha ay dhaqanay leeyibinaydi ila waa ay soo shaqeeyuna way waxay maamineen inaan nolosha halkan ka samayn karin ba dadkii ixtiraafka ay sii loo taganaaday noloshii ujeedada ilaahay ka leeyahay jiritaanka aadmigu ma doon noqoshada afka iyo caloosha ما قولان تيا قرشدا aboorkiyo la sugayay ilkaa hunteeda dawga lagu aamusiyaa ilbaxnimada qaybka ururkiyo faraacida ku ugaarsanaya waa tani ko deedo canka waa afkoysay ma adaa ka in badan intii aadan wada dhalay hadba waxaan awoodo hadba xaalabaydina iyo xaaja ii badan aamino habaandhayn way ugu adkaato waxaan loo ilbixinayn ama loo abtirinayn iimaansan maaye axaraya dhaliilaha awdalay dantaydii ka daaweyn aqoonsiga hadba waxaan awoodo nitaalkeeda leeyahay ictiraaf sabaalaha u igmadu madowba indhow garad kalsoonida ka abraaray weligii iimaanka waxa tahay waa lagu adkeeyo halkuu in kale yahay inuu eega daayo halkii uu ka awraa indhihiisa laga lebi kaska ayligaayo lagu samaada lagu aayabeele isaqoonso waa talo adigu isaqoonsayna in nagaadan tahay aqoonsi kale ma jiree inaguna aynu isaqoonsano bal caawa aynu bilowno hadaynaan hore isku aqoon caawa aynu ma nagaadan baynu saayn qaadano sirta uunku waa adi ilaahay sirta uunku keenay waa dadka sirta uunku waa adi abuurtaadu waa madi maskaxdaada awrani ubaweeye qaad weyn hadii aanad aga barin waa abeesa kula taal lama arag la aaminay qofu oodan baa tahay himilada agoonta aabaheedna nool yahay in loo yahay himiladu waa agoon hadana aabaheed baa nool deed aabaheed waa adigoo himilada adiga dhabaynaya laakiin adiga agoon haysto adiga loo yeeday sayga cadday marada cad kasii oo yaanka ka yulaaya ereyo oran qura qofu aasan baa tahay laguma aqoonsanaado aasan tahay gedigaaga waxa tahay qof qoon qaba ila wada xareednaagiisa jiifaan ma sadaasna halkaas ay iyadu iga dhig baliyatu malawi igu caajistaan filayaan laakiin se habeenada kamida halkan waxa isugu yimi aniga iyo niman saaxiib nahay oo xaraawr wada gallo far la jalaydaayo ما كاتري تفتح برشيد لو رجع يود بيتنا إلى تيجي ويديه أنا كنا وحنا بيجا هيدوان مراواليو أنسلها تورتها نيجا تحاولي سوي كم قط هيدين هاي كم قط هاي لكن كاتري حاولي ستسوون بوي قانا سومها أو تصور بدي تسها لا تسوي تسها كل تصور يوم يسلاك قبلها أنا تيجي تسها أنا جوسنا أنا كذي ما كم قط إذا تصور بدي تسها هاي تسلا تسها لينك فرلتو سؤالي ويدي سؤالي وها يعني اي كمل اي كسارته خبريه kalgacal iyo xiisahaaga beertay nafta ku xasilsiyo xasan xaab barsheedan xageebay ku nooshay maxul awliyaad iyo xuralayntii hoosa maxdigtii shuuro xiraawta timiba mise waxay si isku xawilay naftaada iyo xayaata سيكون إذا ولينا حبالي حكمها في السورية وحداري سجاجي أنا بقول حبيبته حرف كلنا ما يصير حرفي ولا مدوبية إنت شو سنترات محضر على جاهل يجيب وحوم با
maantadii way badatay waa la badiyey ninba wax buu yidhi aakhirkii waxa qasab noqotay inaan na idhaahdo waa daynantii daynan gacanta soo qaban maayo waa tane maalmaha ma jirtee laakiin se wuxuu haddana ina sheego oo idhaahdo saasay wax u jiraan cabdiweli nin la yidhahdo maanta kale ka tiriyey waa cabdi xuseen nin la yidhahdo maanta kale ka tiriyey nin sacuudiga joogaa maanta ka soo tiriyey saasay u socotay nin liifir dul joogaa maanta ka soo tiriyey waxa warsheedii anna waxaan tiriba inantani waaba iman lahayda sidii tuugalaan xade qolyahan raadinaya ayaaba malaha dee dib u sii riixayay waxay tidhi xoogaal baa la ydhaa wuxuun baan ogahay horta inay nili jirto waxay tidhi la xuuraan la xayraan laysxayd la siixiin laga caag xiraadkii xeedhada ku duugnaa xarkaheeda mooye gunta xuu ka jeestiye hilba lagu xisili waa anuu qurux baan ka sheekeeye quruxdaawdee la qaadan waa gabadhaan xayaadkiyo ku masaalay xaysdaayey ama xabagbarsheediyo ku xurmeeyey heesuhu hal xidhaalo maahee waa xuuralcayn iyo xeerbeegti dumaro waa xulkii hargaysiyo xariirtii togdheero waa xareedii boorama xaruntii sanaag iyo waa xanjaabka soolo xamar iyo kismaayo ku xinaysataayo xaadhintii wardheer iyo xoday iyo awaaray xoolaha ku raacda xeebtaa jabuutay xilligeeda joogtaa waa ina soomaaliyeed intaa soomaalidu taallo dee midunbay taallaa aniga xabasheedna ma aha xabasheedu wafiyad kalena maahae waa soomaaliyeed horta waa xila abwaan iyo xildhibaanka carabiga iyo jacaylkay xuduntiisa tahayoo sida loo xaqsooriyo sida loo xushmeeyiyo sida loo xubeeriyo sida loo xanaashiyo sida loo xasiliyo jacayl loo xurmeeyo xaraf xaraf ku haysa inkastoon xudxudashiyo ku xabeebay ulashada qalbi ay xujaysiyo wadna xula ku shidayo caashaqa harkiisiiyo xoogkiisa dhilayba xayiraadi saaro naftu xabagbarsheed bay xuuraanka goobtaa waa xaawadaydii iyaduna xaqiiqdii xiisaha dareenkaa xakamaha ku jiido sidaan ugu xawilanay ugu xeebataayo xeerkiiyo asluubtiyo dhaqankiiyo xishoodkii hablaheenna xidhaya xayndaab ku oodo xaasxaaska socodkiyo xaashee wareegiyo mataqaana xiinkee waa ruux xadiis iyo qur-aan loo xambaarsho xeraday ku nooshaa xadra awliyaado xoolaha la sheegtiyo dahabkiiyo xariirtaba waalid aama filan oo shirab xeerinayay xinjibtooda tahayo waa lama xaraasha xitaa waa laba xaraashaa nimaan doonku soo xulin midaan loo xaraynayn midaan loo xabaarayn guddi loo xil saariyo xaqiiqraadi sahankay xogta keena tidhiba in dhowaydba xeraaw maansadan xaalayda ku qoraysay xaashiye armay weer xajiinliyo eray xididku qoonsado intay sii xamaalaan xiisaha ku gaxshaan waarinantii dad bay soo diratay baryaanka xeraada dib bay nala joogay intaad meedayd haystaan diga daba wareegaysaan arma inta wax la qaado dee hadalladaad lahaydeen xaafadii loo geeyaa gacalka ahayd ma iska aamustaan balse yaa xanibi kara caashiqeeda xadi kara xarfihiisa tiri kara xulafkiisa damin kara xiisihiisa dumin kara xididkiisa jari kara yaa xogtiisa heli kara xarfihiisa furi kara sida xoolo baadiya ama tuug alaab xaday raggan xaynka haystee raadcada u haytaa xanigoo irdheeye waabay soo xaroon layd waaba iska iman layde nima kale aynan dibadib u deexay waxa ugu dambeeya ee aan jeedinayaa waa maanse magaceeda waxaa la ydhahdaa heeriyadii cune way gaaban tahay in yaroo naqan weeyaan waxaan ka hadlayaa hogaamiyaha innaga waxa halkan ina dhigay wax kale maaha hogaamiye xun bayna haysan tuug baynu u gacan gallay anuu daayama labadu waan waaye niman ku farxaba runtaan idiin sheegaya wuxuun baa nolosheenniisa u dhammayd kambayn baa laga dhigay yacni inaynu noolaanaa waxay naga gashay olole iyo kambayn bay naga gashay been baa laynoo sheegayaa haddana been kale laynoo saasaynu u noolahay wuxuu yidhi dad ma kala hambaystaha danta uma hagoogtaha maatada habaaskiyo halasuhu ku yuururo iyagoo haraad qaba codka ii hibeeye la dhex tegay hinaasuhu ma hogaamiyuu noqon beer dhoweyd dadkoo abaare haysta wayd maqlayseen xisbiyadaha la noo furo xaggan kale aya qolo kale maraysa ha xidhnaadaan
in dadka abaare hayso hawdka burco foostada litirka biyo 9 shilin ku kaa يعني إن أنا نلاش ذكي إنه مهم بقى هاي مخصوصة يا مركا اعتماده سياسي مركا اعتماده إن نلاش إنه مهم معها واحد يسوي مهم ما ينوسير نقطة بقى كلام مهم سن هرجيتين كذي كذا مرة كلها قو عمرهم ما يسمع ما يسمع هذا هي رياضي عنا حفر بقى كنا شيء الكيك السولي ده هنشاطه في حال ده إن تبقى فوق عضية أو عدكوا قاعد هالشو ما خلاص سلكي ما هتكاس التميت ما هتكاس يوجد بيد ما إن تدك حنتها هل خوجودهم بس الله صعدا وإن تدك وين دكوشان إن المعنى يلتو دوب يدخل خدمة تو والله إذا هذا هي البيت هاك تجي هل خوجودهم بس هو هل خاطئ إن عدد المسيء ما هتك هير بالجارة هير بالجارة هاي ترير كيو hindisaha qabiilkaba hanku kaaga dhaarto himilada danguudiya dadka horumarkiisa iyo hilin toosan raaciyo isku waa habeene hal hays fiican reebun hadafku ka yahay heer baa la gaaraa waxa adu halgamaysa ma aha in askari ku ilaaliso oo halkan aad soo marto oo dabeetana saacad ugu sir lagu ilaado halka meel ka dambaysa jirta heer baa la gaaraa halka ugu dambaysa ku socota ay tahay inaad hilin toosan jeexdo oo dhaxalad ka dhimato oo berintoola ilmahaagu aanu qeyrkii bariyinte halka ugu dambaysa loo socday hogaaminta laga rabaa waa halkaas heer baa la gaaraa la tagaha habaabiyo dulmalaha la heeriyo deganaha hungoobiyo qataraha hanqaarmiyo hooyada danleydii hiilka fishaanay kugu hooda sheegtaan inaad maqasheen mooyaane meesha la yiraahdo bays la oran jiray imaka turkiga baysankiin baayar sidii lagu qabsaday wad maqasheen waqtigii muctasim dawladda cabaasiyiinta haystay gabadh islaam oo lagu dhirbaaxay baa lagu qabsaday inta oo tiriya muctasima kelmadaas ay tiri muctasimow ninkii dawladda islaamka waqtigaas haystay dabeetana nin baa u yimiyo kuuri dadkii islaamka ahaan halkan lagu adna ya amiirul muuminiin halkan fadhida masuul oo ma dadkii islaamka ahaa saasa lagu qabsadayba yaani heer waxa la gaaraa ay qofka yaani adiga dumadaada ku hoos jiray aad hogaanka u tahay marka uu dulmi ku dhaco ama dhiga ay qabsato cid ugu horeysay maskaxdiisa ku soo dhacda adiga ay noqoto waayo waxa tahay qof caadila oo wadadan marinaya oo wuxuu rabo uu ka helayo ayaa deetay heer baa la gaaraa dadku yahay hubkaagii marna yahay hugaagii hantidii naftaadii noloshiyo halbeegii hogashiyo daruurtii haraciyo ubaadkii humaag baadi socdii hawa aan la'aanteed habeen aanad barideen heer baa la gaaraa hogaamiye dadkaagu yahay hugaagii oo inta istaad hawstu jireed la macaluulaya aan suurkaagu adiga macna badan ku sameeyay waayo dadkaagii baa qatan bee يعني نلاش جبيجة ده واحد كل سحر قاصنا يساعي نبضة تذكارة أو ما أنت تذكارة قرحيستان هذا دي كنا قرح كتر أنت أور ما أنت تذكارة أي بعد كي لا أنا ده كنا نية بعد كتر الله لكن سو شيء ده قدام بيصير سؤال كم يساعده كهيا له هذا رمضان جاب قار أنا أخاف كده لكن هو سمينا كفدي أنت كعيسان لو كمان شيء هير بالجارة تذكران الله هيستيه كي هيستك على نبض والدتك kala rasooyinka yeesheega waa nin haysta iyo kala haysto baynu kala nahay in xafiisyada gashay inaan gelin baynu kala nahay in la og yahay cabashadooda iyo inaan la ogeyn baynu kala nahay waa tabaqadaha jira waayo inna waxay ku xidhan tahay culimada sare inna culimada sare ma taqaanade dadku waa la haystay kii haystay kala noqdeen kolka heer buu hogaamiyu gaaraa dadku aanu noqon dadku aan la haystay kii haystay kala noqon heer baa la gaaraa hadalka tiraahdiyo weedhaada haadiyo shimbiruhu higaadshaan heer baa la gaaraa furintaad la nooshahay kugu soo hirtaano ku hareer istaagaan heer baa la gaaraa haybatiya karaamada rabbi kugu hagoogo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco dadku kugu hadaaqaan heer baa la gaaraa madaxweynaha sawirkiisa gidaarada daymaga xafiisyada lagu dhajinayo aan ilmihi baahay laabta la isaga wada haysto daymagu dadkiisa wada wanaajiso adiga mid kasta sawirka halkan uga lulanaya laakiin daymaga xafiisyada uu ku hooli inta kale ay qatarna kuma yaaladii waxay ka codaynayaan heer baa la gaaraa hodanimo adduunyaha tijaarada maalmuhu lurba aanay kugu hayn oo waxa ugu dambeeyeed u halgamaysaaba aanay ahayn inaad hodan noqoto iyo inaad bisaarada ka cararto aanay ahaynba laakiin si ay ka tahay inaad dhaxal teebto in wax lagaaga daydo in ummadda ugu faanto waxyaabada noocaas iyo qofka han kale meesha sare gaarsiin u tago intii bisaartanayd baynu inaguna maamul ka dhiganaa
baalgaajoon iyo qatan oo ku xadayo tuugo adiga aan garan meel ku yimaado heer baa la gaaraa hor alliya xilkaa gudo ka yahay horaalka heer baa la gaaraa adiga iyo hubsiimadu isu hooyo noqotaan heer baa la gaaraa hoos ruuxa ku dhiga hawatiisu noqoto hamigiisu kala soco heer baa la gaaraa waayeel habsoobiyo wiil haatan laaca tusmad iyo hayaanka iyo talad iyo hogaankaba ku wada hibeeyaan heer baa la gaaraa ana cidiba kula tartami karin inta markaa ninkeedii noqoto way gadan taa kulaya حسن إنه كلمة دا أقلمه أو مفاستي وحنا ذكر مرقاتكتي نكاية اللي اللي بدي تقولي يا وجهي كانوا كم من نسينا واركيسا أنا هذا الكلام الله وعن كعصرية ومدة عاو هاكر سكوت مدية إلي ارتفرها تظله إلينا كانوا بعيا إلي لها ينودانيو بس كعلى نو سيسي أبيو إنك أنا بحاول قال لي وين كايرو أنت بدن أم بقول سلقي إن بدن لو كيري هاي إنه بحاول لي هاي وأنا ده ولا صارا هاي ولا أركينا ولا حديثة إني لهاي واحد يجد وين جرنسينا ولا هاي وعليها ما خبرية آمين وعليها حسر والمحصنة هاي وعليها إلهي خدايو وعليها هاي ما كانوا نقول إنت هذا لكن وحما بنا ونكرجل ما تقدر نقول كلام حاول أن تشوفه وحاول حصلك كليه ما بقول كرو وحنون لنا اليوم آدم هم هنغيا وايو بريد ويتومر كان شربي كانت بربي كانت وهو كده على كوي وحاي كلثوم اللي هو اللي معنا بوس بان تاجنا وعلى ملا عجبين كمان تبص لكن رجوي iyo ayaa igashay waxaan ogahay isaga iyo rag kale oo badan oo wada aqaano oo bartay oo ah kuwa nabadelaya ilaahay waan ugu mahadnaqayaa sidaasan soo gabagabeynaya waxaan leeyahay anna waad mahadsan tahay dadka ku caawada ku soo shaqeeyay way mahadsan yihiin annaga la dayaduna waan mahadsannahay salaamu calaykum weliba waan rumaysanahay waayo dee anigu waxba ka odhan maayo oo ka odhan kari maayo wixii uu xasan yidhi hadday noqoto qiimeynta suugaanta ee maaragtay winala wadaagay waayo waxaa fadhiday intii aan tuhmaayey waayo waxaa fadhiday intii aan ugu jeclaa ummadda maanta nool waxaan islahaa halkaa ka soo fadhiisanaysaa waayo luquntii baa i xanuuntaysa xagga weyga ilaa iyo maanta midba laakiin mar haddii aan halkan imi maadaama wax halkaa laga ama ka koran karayn oo aanay iiga furan haddii beedankeys leeyahay dee erey te ereyga iiga furan yahay baan odhanaya waa ta koowaade xasan muddo dheer baan aqaanay laakiin habeen hore isu kala weynaysay inaanu is aragno xasan suugaantiisa ay bartay xasan waxay baray wejiisa san bay bartay xasan wuxuu dareensay caawa inuu miiska si gaara igu soo dhaweeyo waayo waxaan ogaaday xasan inuu yahay macallin aniguna macallin baan ahay waxaan ogaaday xasan inuu yahay xisaabyahan aniguna xisaabtaan bartay dee haddii maanta suugaantii fogeyn lahayd xasan isaga isoo dhaweeyo miiska isoo dhaweeyey waxaan dareemay
ummaddu say u jirto dee waanay jiraan wax macno u sameeya waxa macnaha u sameeya waxaa ka mid a wixii uu caawa nalahaa xasan waxaa ka mid a sugaanta waxaa ka mid a isdhegaysiga oo hadalka kama dheera waxaa ka mid ah oo wurgiga hayay in af Soomaaliga lumo laakiin inta xasan iyo mid la midka ay jirto af Soomaaliga ma lumaayo innaguna ma lumayo haddaba innaga maxaa intiin halkan fadhiday maanta aan xasan dhegeysanaysa maxaa la gudboon way taas baan wax ka oran karayaa anigu waxayna la gudboon oo aniga ila gudboon oo idinka ila gudboon idinla gudboon inaynu weer u sameyno wixii xasan la yidhi caawa intayna halkan fadhidaa dhegeysatay maanta in badan baynu ka nasiib badannahay daynuka technologyguna uu soo dhaweeyay adduunyada in badan oo kale wayna dhegeysan doontaa laakiin intii maanta dhegeysatay shucuurtii xasan wejigiisa arkaysay waynu ka nasiib badannay inta kale aan dhegeysanin sidee baynu markaa kuwa wax ugu tari karaynaa innagoo u weelaynaa wixii uu xasan yidho meel ku dhignaa anigu taasaan aqoon u leeyahay anigu taasaan ehli u ahay xasan waxaan weydiisanayaa inuu in yaroo tallaabaa ku daro intaa uu yidhi inta kale ee kala daadsan intuu meel igu soo ururiyo dabeedna aniguna aan kuu ka sameeyo taasi maxay samaynaysaa waxaan u diidinayaa inta fog ee aan maanta inala joogin inay fariintaasi gaadho waxaan isleeyahay u dhigmeed oo weel ugu sameeya inta dhalan doonta ee maalin aanayna halkan fadhino innagu aynu ka sheekayno waanu joognay lahan jiri doona iyagu si ay ugu hadho marka anigu intaasaan ku darsanayaa waa intii iga banaanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن هي دليرة وأنا كوري فتنقوري مدح بناني دي لحيا لاتن في كون إسرائيل بقوليو لحدكي حسن وأنا هنبليني ياو إذن كانوا وأنا هنبليني يا دليرة هنبليني ياو أتباع عبطانو مستقبل في بريطان هاي حلقة هنولو كانوا وحوغا بريئة بهالكا بتشتا لكن في مركنا laga saaro aniga iyo Xasan iyo Hadraawi iyo Jaamac Barki iyo Maxamed Daawud iyo raglabida halkana Xasan baa ka gabeeya halkana idinka soo fadhiya barnaamijkan idinka abaabulay idinka qaban qaadiyay annagana waa marti qaadeen markan boqolkiiba intaasaa meesha fadhiday boqolkiiba intaasaa la idhaana waxaanu noqonaynaa qoladeedani boqolkiiba eber dhibic eber hal baanu noqonaynaa waxaa horta yaqiinsataan siduu xasan idiin sheegay wixii au dhaqaaqdaanba inaad samayn kartaan bilaa baryo waxaa loo baahan yahay in caawa waa madal sugaaneed sugaanyahankiinii oo mufakira waayo sugaan inu tirinayne aragti baa ku dheehnayd hadday kuwa la xawgaa tahay hadday kuwa bulshada ijtimaaciga tahay iyo hadday kuwa kale tahayba aragti baa ku jirtay aragtidiinniina halkanay fadhidaa qaarna idinka idinku sii jiraan madasha caawa jilayaashu waa idinka markaa madal kasta oo somaliland ku taallaba horta inaad jilayaal ka noqon kartaan horta ku yaqiinsada oo sidaa ku hawlgala xasan halkan suugaanka muu tirine nolosha iyo aragti dhinacyo badan oo nolosheenna ama siyaasada ama arrimo ijtimaaciya ama arrimo dhaqan ama kuwo suugaaneeda noqoto ayuu halkan loogu tiriyey anigoon hadal ku dheeraanayn in yaroo xusuusa habeenkiisii 1960kii oo 25kii juuna annagoo carruura qoladii beerta xorriyadda joogtay ku sugaysay barnaamijyadii dabaaldega ayaanu ka mid ahayn baarigaraaf yar baan idiin akhriyayaa axmed cali haaruun oo loo yaqaanay dararable ayaan hargeysa kula kulmay 16 bishii 7 2002
oo aan ka waraysay dabaaldegii muqdisho ka dhacay 1 Juulaay 1960 oo ay ka qayb galeen daranamna wuxuu yidhi waxaa jirtay in xisbigii aanu ka tirsanayn ee SNL ku guulaystay doorashadii dowladnimadii inteedii badneed qaatay waxaana hormood ka ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal halkan markaanu ka samaynay xafladii 26 Juun 60 annagoo ahayn kooxdii walaalaha Hargeysa ee xisbigaa ka tirsanayd SNL ayaana lagu marti qaaday inaanu 1 Juulaayna ka qayb galno isku darkii diyaarad baa la soo diray kaasoo qaadaysay nimankii baarlamaanka ah ee Somaliland iyo waqti muqdisho ka yimid uu hogaaminayay aadan cabdillah ismaan annagu waxaanu doobnay inaanu jidka sii marno waxaana loo jiray baabuur yaroo Land Rover ah Hargeysana waxaanu ka baxnay 27 Juun waxaanu sii marnay Burco kadibna xuduudda ayaanu sii dhex qaadnay oo gaalkacyo ayaanu halkaa ka galnay diisaha laga qaadan jiray gaalkacyo markaas habeen ayaanu sii horeynay beledweyne 29 Juun waxaanu galnay xamar halkaa waxaanu ugu qaabilay Radio Muqdisho wasaaradda warfaafinta hudheel ayaana la geeyey kadibna waxaanu ka qayb galnay dabaaldegii 1 Juulaay halkan Hargeysa ama Somaliland waxaa jirteen heeso fara badan oo khaas ah loo sameeyey calankii 26 Juun shan hoogal ayaanu ahayn Allahu naxariisto Cabdilaahi Qarshe Maxamed Axmed Kuluc Maxamed Yuusuf Cabdi Axmed Cali Haaruun iyo Allahu naxariiste Xasan Cali Gilin oo dalbugada loo tumeeyey qoladii aan martidu ahayn ayaan u warramaynay ayaanu uga warranay heesihii aanu 26 Juun u samaynay kadibna waxaan weydiinay inay waxaas u sameeyeen 1 Juulaay madax bannaanidii gobollada koonfureed iyo midnimadii labadii gobol annaga ay islaamkii noogu soo celiyay inuu yidhaahdeen idinku maxaad isku darka ugu tala gasheen nasiib wanaag annagu heesaha aan wadanay waxaa noogu jirtay hees khaas oo ahayd isku darka taasoo ahayd dharaartii walaalkay loo dhisay inuu dhashay soo ma soo dhicin marka waxaan aad ula yaabnay sida aanay wax heesaa ugu talagelin xornimada iyo isku darka way naga qosliyeen nin la odhan jiray maxamed yuusuf laangare ayaa nagu yidhi war annagu heesaha Radio Hargeysa ayuun baanu ka daba qaadi jirnay waxaanu haynaa hees la yidhaahdo bandiiradeeda burugley halka uu kala dhacu ka yimid midnimadu wax khaldan ma ahaynoo cududa la sugayo ma qaldaneen halka uu kala dhacu ka yimid waxa ahayd jibada wadaniga dadka ku jirtay intaa heesood quudhay iyo dadkii loo tegey oo 1960 iyagu galay maamul daakhili ah oo dir iyo daaroodnimadu ay berigaa bilaabatay iyo qoladan oo qowmiyadda Soomaaliyeed labadaas baa isu tegey sidaas heesaha lagu waayay dadkuna may garan waayeen nidaamka meesha ka jiray ayaa sidaa aad u dhicin midnimada ku dhacayna kuwaas ka mid ahaa wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh أبي أبوك سيدي أموري يوسف على التوقيت الدولية بدون حين الجامعة أرنس حسين عبد الله. maansooyin u qalmayay in runtii xusuusiyo baaldahaba lagu reebo ina yidhi kuwaasoon leeyahay innagana ilaahay haynagu anfaco isagana ajar ka siiyo wuxuu yidhi kolley waayi xasan ganay baa hadlay oo ragga lagu tilmaamo kolley rumaagee ay sawiraan inaan weli la gaadhin tiknolojiyadda xitaa aanay sawirin kol hadduu yidhi waxaan jiray innaguna oo kale insaan xasan waxa uu yidhi waa laga horreeyo maadanta waxaan odhan lahaa mustafa khayre sacba loo tuma waa wanqalkii magaca uu bixiyey oo isagana wafayda la saaray ninka mar labaad aan leeyahay sacab diiran oo xooggan ha loo tumo waa ninka macallinka ee maadiska ee qoraaga ee buuggii halkan laga odhan lahaa runtii ama nuxurkii xafladda urursanaya yidhi waa jaamac muuse jaamac runtii waa halyey qaran waana kaa xilkii runtii loo baahnaa iyadoon tashi iyo talo aanu midna dib isugu noqon uu halkaa runtii ka qaatay taa saaxiib waa kugu mahadnaqaynaa
مرلبات يا مرصدحات وكم بهالدقينا بإذن الله تعالى أنا وحنا لنا إن ورسمة حسن دردار بالليل حسنو حسن كنا نسب جيباتها أنا متان كجيبات هو حسن يحسين بيننا وحنا كارد دردار مية إن أنا صاحب كجابين قبل قبيلة دي وحنا كارد دردار مية قبل عقدة يوجد روا إن أنا منا كجابين رنتي كلمة أقولنا إنه وصو كلمة قف حق كتاعنا وجودي لنا كحق دخل كتاعنا كسر جيدا لكن من آخر حيث يوموري منا كفردين صاحب وداعنا وصو إنك أنا وحنا رنتي داير تعاون ويا شالك فرديا taariikh ay dhigaan kulli waan ognahay ama ha noqoto suugaan ama ha noqoto silsilada la tiriyay ama ha noqoto dhan kasta oo fanka iyo suugaanta iyo wixii la halmaalo oo dhan halkay ka galeen waxay caawinayaan inaga inay dhiirigeliyaan ag fadhiga runtii xagsan ay ag fadhiyaan waxay noo tahay wax badan oo iyagana ay ka runtiina lagu mahadnaqno waxa caawa naxdin leh wasaaradii hidaha iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland walow aanan canaanta kaliya saari kareen oo ogeyn la casuumayeen kale inaanay goobta ka muuqan taasoo ahayd xafladooda runtii qolada gabagabada aan mahadnaqaya waa tiimka soo abaabulay Tuba iyo Sonyo iyo Asal leh oo iyaguna runtii xafladan abaabulkeeda ayagana mahadnaq ballaaran baan soo jeedinayay gabagabadii abwaan weersame xasan waxaan ku gabagabeynayaa oon leeyahay qodobkii ugu muhiimsanaa jaamac muuse jaamac baa runtii qaatay aniguna jaamacad ahaan waxaan ula diyaaray oon ballan qaadaya edishanka ku xiga biidnillaahi tacaala ee uu soo saaro inay noqoto jaamacadda armasna tamaalgelisa asalaamu calaykum waraxmatullah وتهي يمكن وحنا مكرفون كذي بدنا أبوان محمد إبراهيم وصلنا ورحمة الله وبركاته وحاسب حاسب إنه بيقبل أمدا هذا هذا يقول إذا كنا فريسة يا له في سحالته عاون دوسا نبى يسأل هذا يا يمكن أنا محلوني يعني وقتها كان يقولوا حسن يا حبيبي كيسة iyo danka jawaabta ummaddu ka heli doona ummaddaa soo siin doonta jawaab wixii maatadiisa maatadu iskama timaadee hawl aan la malayn kare baa ku baxdao soo jeedo maskaxdaa la shiinayaa erey keliya ayaa laga yaabaa inuu saacada qaato waayo dadkaad ku helaysaano waxaad la gobolnimeysaa waa inay tahay wax waafaqsan ummadaas iyo hadiyaan kalaga baaqay waxay tiraysaa ana hawl xataa waxaan kaga baxay xasano jawaabta sug waad helaysaa waa lagu siinayaa intaad caawa fadhida maaha inta caawa fadhida waxay kaalinta qaadanaysa aweyga marka inay gudbiso dabeetana uu dalka ku dhammaado kadibna aad dalka ogaato ardaybaa taagan tahay ama waa maxay kaalinta aad leedahay taasi taa wey waxaynu lahayd dhaqan maanta ka hor waxaynu lahayd dhaqaale waxaynu lahayd taariikh waxaynu lahayd
kaalibaynu caalamka marka laga hadlayo doorasha kaalibaynu ku lahay aan caawa cid kulliba malayn karaysaa ayaa tahay dhaqaalaheena dhaqankeena taariikhdeena aqoonteena afkaxamadeena sidan iyo sidan iyo sidan intaasoo dhan waxaa weliye u ahay oo sumad u ahay afkaxamadeena sugaanta nin la yidhaha loola jiray guush albaltabiski oo marka hore powrisha u gashay markii dambana ingiriis noqday aan isku baranay ugu yimaad wax hore la jira loola jiray markii dambana ingiriis iyo badan ku kabanay weligay ma arag ninkaan guush la yidhaahdo sidaa soomaaliga ama suugaanta soomaalida u saamaystay ma arag ciday u saamaystay asyadi markuu dhimanayay dardaarankiisii wuxuu ku qoray iga dambeeyo afkahamada soomaalida ha laga wahay afka kamu odhanay buuggii uu ku qorayay dardaarankiisa ayay ku jirtaa weedhaasi waxay taallaa haddii la ka dhigo gurigiisa way taallaa jaamacaddii macallinka ka ahaya london ayay taallaa maruu maahmaahayay wuxuu yidhi siduu ula yaabay wuu ku fogaaday dabeedna wuxuu la yaabay xeegeerida innaga suugaanteena dabeedna wuxuu yidhi waama ummadda tiri laba weerood tiri waa ummadda tiri laba weerood kow waama ummadda tiri awr kala guurtayaa laysu celiyaaye uur kala guuray laysuma celiyo waa maahmaah culus oo u baahan wakti in la sharxo number two waama ummadda tiri walaalkaa magtana la bix markhaatigana ku fur dad badan aan leeyahay baa luqadeenu suugaanteenu ay saamaysay waa suugaan taya leh oo taran leh oo maaragtay haddii caalamku uu isagu helo afkiisa ku helo kudhiisa anfacayso calaa kulli suugaanteenu af soomaaligeenu waa laba waa hadal iyo hawgaa hadalku dee waa kaa maanta oo dhan la shubaya laakiin nolosheeda awal iyo aakhir waxa u sumada ee u raaraacayi waa suugaanta dhalinyarada caawa fadhidaa markuu qofku cabirayo dhaqaalaheena iyadoo adeegsanaya markuu cabirayo dhaqankeena iyadoo adeegsanaya markuu cabirayo taariikhdeena iyadoo adeegsanaya markuu cabirayo waayaheena iyadoo adeegsanaya markuu cabirayo aqoonteena iyadoo adeegsanaya meesha ugu halisaysan ama labada goore ay culus tahay waxa weeye nabadda iyo colaada suugaanta ayaa nabadda lagu ilaaliyaa marka qablashiga iyo colaad la abaabulayana iyadaa lagu abaabulaa marka qofku cariga buliis balahay maxkamadi ma jirin qofku hadduu xalka ka baxo ama islaaho ama dee uu dhibaato keeno dhibaato la yimaado tobanayahoodii baa loo yeeri jiray oo xidaada ahu 8-9 oo inta dhexda la fadhiisiyaa ayaa maaragtay lagu akriyi jiray 50 maambahood iyo 20 gabay iyadoo xalka ku xidhan yihiin intaa markuu liqo ayaa xaliga laga furi jiray dabeedna isagoo biyo kaloo tallaabsanaya ayuu la soo jiray ayuu meesha ka kici jiray waayo waxa meesha taala qabaalku kabis lahaayo oo ka tagis lahaayo quruumaha isku badan ee Soomaaliya waxay isku dileen bahalkan qabaalka iyo xoolaha lagu waraabiyo hal soo dadkii ku soo orday qabaalkii dhinaca ka siibisay oo dadkii qabaalka hadi ka sharaad sameeyay warashaadi qabaalkii dhinaca siibisay waa qabaalka hadaa gaareen waa weel laga qori jiray dhirta oo barigaadi lagu waraabi jiray xoolaha aan fustooyinka iyo qalabka casriga ah wala xageed laga qoro xoolaha lagu waraabiyo marka uu ashadtay intii hasalaadii baa soo raacay dalkiisu iyo dabadaba soo qariyay ku sameeyay wuxuu leeyahay hasho qariyay ka jeedisay waxa la soo qaatay ku bahal beriga la qaaday jiray oo loo jiray qaash
وهذا الكوارث كثيرة وما كابر قاعد يحرق سويش أنتو أيوة صعبة صلبي كم تقول قربوا كشرة الصوغة بسبب مستكلها قبل كاسوا كمان كتب بكي لقول إذا بدأ كل إنتاج إن بدي كل عرض إلا سياحة واي على لدلي واي بكي كانوا حكا هذا إيه نعمل هيا وقبل كابس الهاي وكتب الهاي سوغات لو حلوا هذا السنة وهي يلورش يبعدون يكلورشة هي حلوا هذا السنة بس هذه الاجتماعات لو دودية قفك لو عقل عليا قفك هذه لا يكلم ما تنبض ما تنسحب لو كليا ما لو بعد سوغات ما هاي وحيا ربنا البعض قفك ترينا طبعا واستعان ودخل إنه الصومالي هذا إنه مدى تقاليد يقال إنه مدى دخل كذا يقال إنه مدى تاريخ يقال إنه مدى الدين كذا يقال هي اللي بهي إذا كان على مجلس كوايا تحي كان لا يحصل لو شوف بدرنا كان مالي يا كنت وعيك يعني يقول مركا مش حلوة لقي ماتوا لكن أباح وحنا يا أباح dadka dhageysan maybe qof qasii u maleeyo leeyahay ninkan bal raadiyo halkuu ku koray cida wax bartay iyo cida wax ku shaqay على كل حسن سافر كجبر حيا هذا القبيل معي وهذا الذي ده لا تيجي تيجي أو حسن بارا هذا الكلام حسن يعني هو هذا كي سألت في شيء شو بنتو إيشا إن شاء الله بنتو إن شاء الله بنتو يريد دكتور جريسة أو قتيل كم يقول لك كوزي هذا أو نليك هالك فدنا سامي سوني ولا سوى بلاندا بارد دوستك سبحانك يا عبد تجينا في ورقة سورة تفرق بلاي ولا وين جرى وين ولا لا ميدول بكاري تاي نور سكور هاي أيه هو أنا عاول لك شيء كذا معها مركا على كل أنا قلنا يبقى خير يقعدنا وأقوى هيسا تكوّي يا حتى سلوك أيوه حتى ما يكوّي فحاسب الله لو تاجنا وحنو بعد لا الله أتو الله يعني يكمل يا من بعنا وبركة عن خبره اللي هذا اللي لا يوم القيامة صوت تاجنا مركب هو ولا من الله وحبته ما هذا هذا كده الصبر يسا وتوحد بدل يبقى تتبعه النار كرنا مركب أنا أحد دوني أنا نصلوا لكن حتى دوني أنا نصلوا وين أنا بيسكو قاعدنا حتى لا نعرف كل حاجة وين أنا بيسكو قاعدنا هدي لها كبير مالك ما لقد تبصوا دوسوا واحد كاسوا ولا سكرت هذه يعني سيدي وإذا بعيد النجوم الرجال اللي كل ما يصير أنا راح أقول لهم كان سلوا ولا جاي حل أبو وحكي لما يله شغال كاسوا ومحيط شغال كله عدة مركا تاريخها نقله وريكها أنا أبو عن كبير كله كبير له إن خذ مثلا إنه أنا أفضل كيس النظر يفضل كيس النظر عن وحكي لي ويا نبي ماضي هنا تجوهرنا وقريات تجوهرنا وقرار تجوهرنا أيام نوبة عنا ومركا مارك كم على شون قبل دي يتحدي للتنين مركا إن شاء الله تعالى إلهي قراها وحن قبل إياه إن إلهي حسن كل بوه وتذا صوص كهاي ما تحيو إن هذه إلهي كل صوت تحيو والسلام عليكم ورحمة الله سؤال الكويزيات sidoo kale dhammaan asagari xandaawi boobe iyo dhammaan dhalinyarta inaga soo qayb gashay xafladda adi su-aashin horta gudahaan waxaa la weeyaa ninka weersamada ah nin badan lama qaday ahaanta qofku markuu gabayo ama suugaanta uu gelayo waxa inta badan qofka maskaxdiisa kusoo dhacda qofka ilmihiintu uu ahaa oo wuxuu kaa dhaxlay ama awgii ama adeerkii ama adigii ama eedintii qof isaga ka mid ah mise waxa uu noqdo qof beeran kaga soo dhacdo xagga ilaahay oo kasoo ilaahay haddana waxa jirta qofku ilmihide u yeelan karo marka waxa weeyaan su-aasha inaad iga jawaabto oo ah su-aasha ku noqonaysa ta koowaad ee qofku
ما jiro cid aan ka hidda raacay suugaanta aniga qoyskayga soo jeedaa ma jirto laakiin sawa iska yimi ilaahay taas waa taa su'aasha labaad ee ahayd tahay waqtigii igu horeysay sidii sagaashii bay igu horeysay way gada taafilay waa tahay وأنا ويدي لها كل ما تي ورسمة ويدي لها واحد جتا حس تذكر بشر هذا اللي تحكي لي عنه الله مع الملك لكن مع الآية كمل مع الشيء عن ضروري ولا تصل تسليه فيبقى مع حاجاتي وأسماعيلي معروف في أنا قاعد شعار سري أو في عناء أو في نسوق لها أو بيتنا السويدي أو بيتنا عمده أما بيتنا أيوة بيتنا السويدي